kulankan wasiirka warfaafinta Cismaan Cabdullaahi Sacaartida Cadaani oo uu helinaya mas'uuliyiinta wasaaraddu ay la yeesheen shaqaalaha iyo wariyaasha ka howlgala wasaaradda warfaafintu waxa uu salka ku hayay dardargelinta howlaha shaqo ee suxufiyiinta iyo warbaahinta qaranku ay u xilsaaran tahay waxaan ugu halkaasi ka hadlay Khadar Maxamed Cakulle maarayaha TV-ga qaranka waxaanu xusay kaalinta adag ee xilligan laga rabo shaqaalaha iyo halwadanada wasaaradda warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo soo jeediyay inay heegan galaan isla markaana shaqada laban dhammaanteen wada mas'uuliyiin baynu nahay qofba heer mas'uuliyaddu maaragtay ay u joogtaba waqti baynu ku jirnaa sidii abaaraha oo kale aad u adag gaar ahaan xagga gurmadka qaranka ee doorashada oo ah xilli adag oo sida ciidamada loo dardargeliyo ee ciidamadu heeganka ka ugu sarreeya ay u galaan si la mid ah aynu inaguna heeganka ugu sarreeya muxuu ahaay u galayno waayo waxaynu joognaa halbowle la mid ah kaalinta ciidanka qaranku ay ugu jiraan dalka sidaa darteed waxaan aad iyo aad rag iyo dumar dhalinyaro iyo da'dhexe iyo waayeelba idinka mahad celinayaa ajiibka iyo imaanshaha maamulaha idaacadda reer Hargeysa Maxamed Saciid Maxamed ayaa isna iftiimiyay howlkarnimada iyo dadaalka haboon ee hayaan wariyaasha ka howlgala qaybaha kala duwan ee wasaaraddu shirkana waxa uu daaran yahay shirarkeennii dardargelinta ahaa isagoo ku beegmayba shirkii billaha ahaa ee bil kasta wasaaradda aad la hadli jirtay shaqaalaheeda si aad u hoga tusaalayso ayada oo foodan ay nagu soo hayso doorashooyinkii dalka ka dhici lahaa kuwaasi oo wasaarad ahaan kaalin weyn aynu kaga jirno sidii aynu shacbiga Soomaaliland ugu gudbin lahayn warar tafatiran oo ku saabsan doorashooyinka iyo barnaamijyo waxa mudan shaqaalaha halkan fadhiya oo ah shaqaalihii kaalinta xoog gala ka soo qaatay hawlihii dardargelinta ee dalka ka socotay sida abaarihii oo kale kaalinta xoog gala ka qaatay waxa kaloo filayaa imikana inay kaalin fiican ka qaadan doonaan hawlaha doorashooyinka ee fooda inagu soo haya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xasan Cumar Horri ayaa tilmaamay in ay suxufiyiinta wasaaraddu ay mar walba ku dadaalaan inay ilaaliyaan anshax iyo nidaamka wanaagsan wasiirka ayaan dhow saxiix doona wax la dhaho code of conduct aynu doorashooyinka ku galleen isaga saxiix doona ururada saxaafadda madax bannaan baa saxiix doona komishanka doorashooyinka saxiix doona waxa la inaga rabaa markaas sidoo yahay iyagayna waxba ka dhimo waxna ku kordhin haddaynu nahay saxaafaddii dadweynaha inaynu u fulino waxa la rabaa kelmadda fiican inaynu gudbino waxa la rabaa mas'uuliyadda inaynu qaadno waxaanu ku kalsoonahay aadna u aaminsanahay shacabkeenuna waa shacab aad u fiican shacab ayina shacab wanaagsan waxaan qabaa inaguna maanta inaan muujino xirfaddii suxufinimo oo dalkan lexjeclada iyo rabitaanka ka lahayd oo aayo fog sii eegaysay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Sacaartida Cadaani ayaa ku dheeraaday marxaladda xilligan lagu guda jiro iyo xilka laga rabo suxufiyiinta geesta kalena wasiir Cadaani waxa uu ku booriyay wariyaasha ka howlgala warbaahinta qaranku inay ahaadaan waqtiga doorashada kuwa dhex u noqda xisbiyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu inagu waajibay inagu meeshan sugnimo waxa weeye inaynu hawsha qaranku inoo egdadin aanu sidaan tahay u qabano waa maxay hawshaas waxa weeye inaynu gudbino war sax oo run ah oo xaqiiqa inaynu ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland aynu gudbino warkaynu gudbinaynaa inuu noqdo mid dhaba oo xaqiiqa ku salaysan oo aan buunbuunis lahayn oo aan lahayn wuxuu wariyuhu maskaxdiisa ka keeno ee ah wax faagtisa oo jira maxaan ku dhahdaa warkaas noqdo mid aan cidna lagu durayn oo aan oranayn adeerkii baa musharaxay oo oranayo anigu dhex baan u ahay saddexda maxaan ku dhahdaa xisbi qaran ee jira ololahaas maalinta uu bilaabmo ayaa laga rabaa sideedana waxa laga rabaa in wariyuhu nin dhexa maxaan ku dhahdaa uu noqdo warku gudbinaya uu noqdo mid ka baxsan anshax darrada suxufiga aan loo ogoleen ee uu noqdo suxufigaas warku gudbinaya mid run ahaantii ku dhisan maxaan ku dhahdaa mid rasmi ah warbaahinta gaarka loo leeyahayna gaar baan ula shiri doonaa waxaanu samayn doonaa news desk gathering wax la yidhaaho ama qayb soolna aanu ka dhex samayno oo TV-ga iyo maxaan ku dhahdaa radiogu iyo dawanba ay isticmaalaan oo ah sidii wararka loo soo ururiyay mid dibadeed iyo mid gudaba maxaan ku dhahdaa loo soo heliyay
waxa war jira ee xalay dhacay la hayo wixii maalinimadaa jirana laba shif baanu u samayn doonaa oo warkaas soolna dhexdeeda aanu ku tayeynayno soolna inay maxaan ku dhahdaa ay maxaan ku dhahdaa sameeyaan deskigaas uu noqonayo mid aanu warkiisu habsaamin qayb baanu samayn doonaa howlgelin ah iyaduna oo laba shift ah wariyaha waxaanu ka doonaynaa waanu la soconaynaa meel kasta uu tegayo waqtiga jira ee shir maxaan ku dhahdaa la qabanaya by the time waqtigaa uu soo duubo warkaa waxaan rabnay inaanu gurigiisana la aadin maxaan ku dhahdaa berfish qaadna aanu la tegin oo aanu kusoo samayn war dambe oo aad dibadda kusoo samaynaysaa jiri maayo wasaaradda aad ku dhex samaynaysaa nin walba waxaa kale oo aan sheegayaa inaanu wariyayaal khibrad leh oo hable iyo inamaba isugu jira aanu xisbiyada u asaan garayn doono marka ololuhu bilaabo oo aanu khibradooda aanu doonayna qaar khibrad leh oo warkaa meeshaa jooga ummadda jamhuuriyadda somaliland si mug leh maxaan ku dhahdaa ay usoo gaadhsiiya ayaan rabnaa waxaan nasiib wanaagin oo alxamdulillah wax loogu faanaa wariyayaal haddii la eego maanta jamhuuriyadda somaliland kuwa wasaaradda warfaafinta jooga hable iyo inamaba cid ka khibrad badana ma jirto ka ugu dambeeyey kuwa idinku dambeeyey ugu ma garanaysaa warka ugu dambeeyey soo galay ayaa sababta dhinac iyagoo ka faa'iidaysanaya editorska ay dhinac fadhiyaan iyagoo ka faa'iidaysanaya warayaashii hore kasoo horreeyey oo nooc qaarkood khibrad aan cidba gelin lahaynaya isla markiiba si degdega wax u barta ayaa jira oo wax lagu faanaa qof kastoo jamhuuriyadda somaliland maanta ama t v ha noqdo idaacadda inagun baaba jirne ama t v ha noqdo ama website ha jirene waxaanu leenahay wax cid u dhigantaa wariyayaasha maxaan ku dhahdaa ee ka jira radio hargeysa iyo t v-ga qaranka iyo dawan runtii wax loo dhigaa ma jiraan wasaaraddu waa dhexdhexaad xisbiyada qaar dee ayaa jira wariyayaal aan u dirnay oo kamaradiina ka jijabiyey horena u diiday waxaanu ogeysiinaynaa wariyayaasha aan usoo diyaarina aanu maxaan ku dhahdaa xisbiyada kusoo darno xisbigay doonaan ha noqdaan in si rasmiya loo soo dhaweeyo oo wixii xog ay u baahan yihiin nala siiyo marka uu yimaadana maxaan ku dhahdaa si sharaf leh oo maamuus leh oo qadarin leh maxaan ku dhahdaa loo qaabilo ayaanu maxaan ku dhahdaa aanu doonaynaa wasiirka warfaafinta mudane cadaani waxaa kaloo intaa uu ku daray inay tallaabooyin horumarineed ay ka qaadi doonaan wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda somaliland waxaan kaloo soo kordhinaynaa oo aanu magacaabaynaa labada cisho saddex cisho ugu soo horeeya aan idiin sheegaynaa hablaha wasaaradda jooga xeel baanu u dhiibaynaa qaar fara badan oo hablaha ka mid ah xukun saleebaan jirde oo ka mid ah howlwadanada wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu ka hadlay dibindaabyo uu kala kulmay xisbiga waddani mar uu shaqo uu u tegey shirweynihii xisbiga waddani baa ka qayb galay ifteeshkana waa laga keeno halkan cabdi cali baa iga diray deedna niman aan garan waayey hayen mooye ayaa i jir dilay deedna tiifiyada iyo idaacadiya wax walba ka sii daayay marka alxamdulillah horta kolla haddii aan ka nabad qabo laakiin kabaradii way jabiyeen cidna umay raacin waqtigana cabdi cali baa joogay qaar ka mid a suxufiyiinta ka howlgala wasaaradda warfaafinta ayaa talooyin iyo tusaale iyo su-aalaba ku weydiiyey wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda somaliland